Bismillahirrahmanirrahiim. Galab wanaagsan. Halkani waa xogbahayaha ciyaaraha. Barnaamijkeena galabta waxaynu xoog ku saari doonaa wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda iyo xidiga Manchester United ee Van de Beek oo laga reebay ciyaartoyda xulka Holland ku matalaysa koobka Euro sanadkan. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe, like dheh, asxaabtaadana la wadaag. Mahadsanid. aynu ku bilownay xidiga kooxda Manchester United ee Van de Beek ayaa laga saaray ciyaartoyda xulka Holland ku matali doonta koobka qaramada Yurub waxaana loo sababeeyay dhaawac ka soo gaaray boodada. xidigan 24 jirka oo 19 kulan matalay wadankiisa Holland ayaa ka soo muuqan ciyaarihii iskululeenta ee xulka Orangeska ay dheeleen waxaana maanta si rasmi ah loo xaqiijiyay in laga reebay ciyaartoyda. لاعبكان ayaa mustaqbal ifaya lahaa ka hor inta uu ka biirin kooxda reer England ee Manchester United halkaas oo uu ku dhameystay kursiga keedka xilli ciyaareedkiina dhaafay waxaana muddo 2 sano ku dhow uusan ciyaarin kulamo badan kadib markii waqti hore la xiray horyaalka Holland kadibna waxa uu ka mid noqday kooxda United halkaas oo uu u dhaxeeyay gurigiisa iyo kursiga keedka ee Old Trafford. markana aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. kooxda Brighton ee horyaalka England ayaa dul dhigtay qiimo dhan 50 milyan oo pound daafaceeda dhexe ee reer England Ben White. xidigan ayaa shalay ka mid noqday xidigaha xulka England uga qayb galaya Euro-ga waxaana muddo badan la xiriirinayay kooxaha ugu waaweyn Ingiriiska. xidigan ayaa ka mid ah daafacyada da'da yar ee Ingiriiska u soo baxay waxaana muddo 2 sano ah la hadalhayay inuusan muddo dheer ku sii nagaan doonin kooxdiisa Brighton. Man United, Arsenal iyo Liverpool ayaa la xiriiriyay mustaqbalkiisa laakiin qiimaha Brighton ay dul dhigtay laacibkeeda ayaa adkeyn doona isku day walba oo ay sameeyaan kooxaha waaweyn. dhinaca kalena mustaqbalka qadka dhexe reer Spain iyo kooxda Atletico Madrid Saul Niguez ayaa weli saldhigan waxaana kooxaha doonaya adeegiisa ku soo biirtay naadiga Manchester United. kooxda United ayaa ciyaaryahankan adeegiisa muddo dheer daba joogtay balse laacibka ayaa ku faraxsanaa naadigiisa Atletico Madrid. Mundo Deportivo ayaa qortay maanta in xidiga xulka La Roja uu diyaar u yahay inuu ka hayaamo geegada Wanda Metropolitano xagaagan waxaana kooxdiisa Atletico Madrid ay ku doonaysaa 80 milyan oo euro. kooxda Manchester ayaa diyaar u ah laacibkan in ay siiso 150 kun oo gini isbuucii laakiin kuma aha kaliya ugaarsiga loogu jiro saxiixa laacibkani sida wararkeeni hore aan idinkugu soo gudbinay. kooxda Bayern Munich ayaa wararka qaar sheegayaan in mar horeba ay heshiis la gaartay naadiga Atletico Madrid ee wadankaasi Spain. geeska galana sida ay daabacday El Gol Digital kooxda Barcelona ayaa hoggaan ku haysta tartanka loogu jiro saxiixa daafaca bidix ee kooxda Valencia Jose Gaya. daafacan ayaa doonaya inuu ka hayaamo kooxda Mestalla ka dhashay waxa uuna iska diiday heshiis cusub oo ay Valencia soo bandhigtay. dhaqaale xumada haysata naadiga ayaa ah sabab kale oo ay kooxda haddii ay dalab wacan hesho ay diyaar u tahay in ay iibiso 26 jirkan reer Spain. kooxda Atletico Madrid ayaa sidoo kale la xiriiriyay laacibkan balse waxa uu doorbidaya ayaa la leeyahay inuu u wareego garoonka Camp Nou. isla wararka Barcelona ayaan ku jirnay. Barcelona ayaa la filayay isbuucan inay ku dhawaaqdo saxiixeedii saddexaad oo ahaa qadkii dhexe ee Liverpool Jorginho Wijnaldum balse kooxda ka dhisan France ee PSG ayaa dalab ka wanaagsan midka Barcelona maalintii u dambeysay kaga qaaday saxiixa xidigaasi. taa oo ay jirto ayaa maanta waxa warar ka imaanaya Holland ay cadeynayaan in PSG ay aad ugu mashquulsan tahay in xidig kale oo Barcelona ku dhow ay heshiis la gaarto waana laacibka xulka Holland iyo kooxda Lyon Memphis Depay. kooxda Barcelona ayaa kor u qaaday dalabkii ay u soo bandhigtay laacibkan si ay u hor istaagto kooxaha kale ee qoondeynaya saxiixiisa balse PSG ayaa dalab midka ka duwan u bandhigtay ayaa la leeyahay xidigii hore ee Manchester United waxaana labada koox ay aad haatan u sugayaan go'aanka weeraryahanka reer Holland. PSG ayaa u muuqata kuwa baad ku haysta Barcelona oo xidigii ay damacdaba daba taagan ayna ka warsugno halka mustaqbalka Depay uu ku dambeeyo. dhinaca kalena sida ay maanta qortay Defensa Central kooxda Real Madrid ayaa ogaatay qiimaha ay tahay in ay bixiso si tababare Ancelotti ay dib ula midoobay weeraryahanka reer Brazil ee kooxda Everton Richarlison. xidigan oo sidii uu ugu soo biiray horyaalka Premier League ka mid ah weeraryahanada lagu hadalhaynta badan yahay ayaa kooxdiisa Everton ay dul dhigtay baa la leeyahay qiimo dhan 100 milyan oo euro. xidigan oo haatan boos joogto ah ka haysta xulkiisa Brazil ayaa
ayaa kooxdiisa Everton u dhaliyay 42 gool halka uu caawiye ka ahaa 9 kale 119 kulan oo uu kooxda u saftay. tababare Ancelotti ayaa aad u qiimeeyay xidigan waxa uuna qalqaalo ku wada madaxda Madrid si ay ugu dhaqaaqaan laacibka reer Brazil. wargeyska ka soo baxa Talyaaniga ee Calcio Mercato waxa ay warinaysaa in naadiga AC Milan ay diyaar u tahay inay dalab u gudbiso kooxda Lille iyaga oo doonaya weeraryahanka reer France ee Jonathan Ikone ka oo ay ku heli karaan qiimo macquul ah. xidigan ayaa heshiiskiisu ku egyahay 30 Juun 2023 waxaana bilowday wadahadalo u dhaxeeya labada koox ee Rossoneri iyo Lille. kooxda reer France ayaa 12 milyan oo euro ku fasaxi karta daayarka reer France oo ka mid ah weeraryahanada da'da yar ee Yurub ka dheela haatan. kooxaha Atletico Madrid iyo Borussia Dortmund ayaa sidoo kale daba jooga wiilka reer France balse u soo bixida Milan ee Champions League ayaa ka dhigi karta baa la leeyahay in laacibku uu doorto kooxda Milan. Fiorentina ayaa 60 milyan oo euro dul dhigtay weeraryahankeeda reer Serbia ee Dusan Vlahovic oo dalabyo ka helaya naadiyada Juventus iyo Milan. 21 jirkan ayaa ka faa'iideystay ka tegida naadiga Fiorentina ee weeraryahankoodii hore Chiesa oo ku biiray Juventus waxaana xidigan uu soo bandhigay qaab ciyaareed wacan xil ciyaareedkii tagay. xidigii hore ee kooxda Partizan Belgrade ayaa ka mid ahaa ciyaartoydii ugu bandhiga fiicneed xil ciyaareedkan Talyaaniga isaga oo shabaka ku hubsaday 22 gool 37 kulan oo naadigiisa u ciyaaray. La Viola ayay ka go'an tahay in xil ciyaareedka dambe ay laacibkeeda ku hayso garoonkeeda balse Calcio Mercato ayaa tabaxaysa in kooxdani aysan aqbali doonin wax ka yar 60 milyan oo euro. dhinaca kale Real Madrid ayaa aqbashay xaqiiqda ah in xil ciyaareedkan aysan heli karin saxiixa weeraryahanka kooxda PSG ee Kylian Mbappe sida ay qortay AS oo ka soo baxday Spain. Madrid ayaa xidigan booska hore ka gashatay xidigaha ay xagaagan la soo saxiixanayso waxa ayna diyaar u ahayd in ay wax walba kaga adkaato naadiyada kale ee doonaya saxiixa xidiga France. Mbappe ayaa heshiiskiisa waxa kaga harsan hal sano oo kaliya waxaana kooxda Blancos ay rabtay in qiimo jaban ay ku hesho balse madaxweynaha naadiga reer France ee Nasser Al Khalifi ayaa isbuucan horaantiisa sheegay in Mbappe uu sameelno uga socon kooxdooda oo aysan gadi doonin ama bilaash toona ku fasaxi doonin waxaana hadalka madaxweynaha PSG uu Real u noqday wax ay ku quusato. ugu dambeyntiina kooxda Manchester United ayaa laga soo diiday dalab dhan 39 milyan oo euro oo ay ka gudbisay daafaca kooxda Juventus ee amaahda ku jooga naadiga Atlanta Cristiano Romero. kooxda Atlanta ayaa haysata dooqa ah inay si rasmi ah ula wareegto laacibka reer Argentine iyaga oo bixinaya qiimo dhan 21 milyan euro waxaana naadiga ay diyaar u tahay inay iska sii dirto haddii dalabkeeda miiska la soo saaro. Atlanta ayaa ku rabtay 23 jirkan reer Argentine qiimo dhan 52 milyan oo euro waxaana United ay ku qasban tahay inay la xajooto naadiga reer Talyaani. barnaamijkeeni galabtana waa inaga inta. halkani waa xog baahiyaha ciyaaraha waa channel cusub oo ugu talagalay in idinkugu soo gudbiyo warbixinadii ugu dambeeyay kubadda cagta caalamka. dhageysta ama daawada haddii ay ku qanciyeen warbixinadeena fadlan subscribe iyo like kanaalka wixii taliye tusaale ahna inuu ugu soo gudbiyo commentiga. mahadsanidin.